magaalada Bandiirale ee gobolka Mudug ayaa lagu soo gabagabeeyay shirka nabadaynta beelaha ood wadaaga ah ee galbeedka gobolka Mudug kaas oo muddo 9 cisho halkaasi uga socday. shirkan oo marxalado kala duwan soo maray muddadii uu socday ayaa turxaan bixin isqancin iyo ka garaabida dhacdooyinkii dhexmaray beelahan wixii ka dambeeyay sanadkii 2007 ayaa ugu dambeyn waxaa labada beelood ay ku heshiiyeen 9 qodob oo la filayo inay xal waara u noqdaan colaadii labadan beelood u dhaxaysay muddada dheer. qodobka koowaad number 1 ilaalinta nabad waarta si loo xakameeyo hubka baahsan ee dhalinyaradu ay gacanta ku haystaan loona gaaro xal waara oo nabadeed loona fuliyo heshiiska nabadda ee Bandiirale waxaa labada beelood ku wada heshiiyeen ku wada dhisteen guddi xurmaha oo ka kooban 13 caalim oo lagu soo xulay aqoontooda iyo diintooda islaamka kuna dhexleen sumcad wanaagsan bulshada dhexdeeda. guddiga xurmada oo ku xusan xarafka isla qodobkan ayaa galaya go'aanka ka gaaraya faldambiyeed kasta oo ka dhex dhaca labada beelood ee heshiiskan dhex maray si waafaqsan shareecada islaamka. go'aanka guddiga xurmada labada beelood ay ka gaaraan dacwooyinka waxaa meel marinaya maxkamadaha gobolka Mudug ee labada maamul ee Puntland iyo Galmudug heerarkooda kala duwan iyadoo lagu salaynayo deegaanka uu ka dhacay faldambiyeedku haddii guddiga xurmadu aysan meel kale isku raacin. guddiga xurmada ayaa go'aan ka gaaraya goobta lagu xirayo dambiilaha ay ku caddaato samaynta faldambiyeedka. haddana waxaan u soo gudbayaa qodobkii labaad. qodobka labaad faldambiyeed maxaa faldambiyeed la dhahaa? ciqaabta faldambiyeedku waxay ku koobnaanaysaa qofka ama dadka faldambiyeedkaas sameeyey. qofka ama kooxda abaabusha dhiirigelisa gacan siisa ama si kasta oo kale uga qayb qaadata faldambiyeed waxay mutaysanayaan xabsi iyo ganaax u qalma faldambiyeedka ka dhacay. qofkii ama kooxdii kasbax u disha waxaa qofkaas ama kooxda la marinayaa shareecada islaamka ciqaabtiisuna waxay noqonaysaa sida soo socota. number 1 dambiilaha waa la soo qabanayaa waxaana gacanta loo gelinayaa cidda la qisaastiisa. number 2 dambiilaha waa la qisaasayaa dil toogashaha ayaa lagu dilayaa qabiilnimana looma cafin karo. number 3 hadday duruufu keento inay cafiso ciddii iska lahayd dhiiggaas waxay xuquuqda u raacanaysaa dambiilaha wax dilay oo kula qabiilkuna lama bixin karo diyadaas. diyadu waxay noqonaysaa mid la cusleeyey sida shareecada islaamku ay qabto 40 rimay geela riman ama uureyda 30 qaalmood oo 5 jir 30 qaalmood oo 4 jir 6 loo geeyo 40 waa boqol qiimana laguma kala qaadan karo. dambiilaha haddii mag laga qaato wuxuu marayaa haddana xabsi dhan 5 sano oo aan cafis lahayn. waa dhaqan celin xabsigaasi bay la tahay. magta dambiilaha waxaa bixinaya dambiilaha oo qura beer ahaanna looma qaybsan karo lamana gacan siin karo. dilkii aan ahayn kas waxaa la marinayaa shareecada islaamku waxay ka qabto dilkii aan ka ahayn ee kama ah. qofka ama kooxdii weerar geysata iyadoo qaadanaysa khasaaraha goobtaas ka dhashay hadday tahay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed. qofkii ama kooxdii geysta dil dhaawac ama dhac oo sharciga ka fakata waxaa laga soo qabanayaa meel kasta oo ay u baxsadaan qofkaas ama kooxda iyo cid kastoo kaalmaysa dambiilaha inuu fakado waxay mutaysanayaan ciqaabta ku habboon waxaana go'aan ka gaaraya guddiga xurmada labada beelood. qofkii ama kooxdii geysata kufsi waxaa la marinayaa ciqaabta shareecada islaamku ka qaba kufsiga iyo weliba xabsi dheer. qofkii ama kooxdii dhac geysta waxay mutaysanayaan ciqaab xarig ah oo u qalanta heerka dembiga ay geysatay iyo inay soo celiso
hantidii ama xuquuqdii ay dhaceen ay qofkii ama kooxdii ay ku caddaato inay abaabuleen colaad nacayb isku dhac labada beelood waxay la kulmayaan ciqaab adag oo ah xabsi muddo u dhaxaysa 2 sano ilaa 5 sano oo aan cafis lahayn. J faldambiyeedka heshiiskan ku xusan wixii ka baxsan waxaa lagu dhaqayaa shareecada islaamka iyo xeerka ciqaabta. dacwada dilka dhaca iyo kufsiga ee ka dhaca labada beelood waxaa go'aan ka gaaraya guddiga culimada labada beelood si waafaqsan shareecada islaamka iyo xeerka ciqaabta iyo heshiisyada labada beelood ay saxiixaan. qodobka 3 la dagaalanka maandooriyaha iyo qaswadayaasha. isticmaalka maandooriyaha sida daroogada iyo khamriga ayaa ugu horeeya hurinta colaadaha. haddaba si loo xakameeyo labada beelood waxay isla qaateen sida soo socota. Number 1 dadka ka ganacsada ama fududeeya soo gelinta maandooriyaha deegaanada labada beelood ee heshiiska wada galay waxay la kulmayaan ciqaabta ku xusan xeerarka ciqaabta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland. Number 2 hay'adaha ammaanka ee ka howlgala deegaanada labada beelood waa inay la dagaalamaan maandooriyaha si aysan ugu fidin deegaanka intiisa kale. Number 3 labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Galmudug waa inay wax ka bedelaan xeerka ciqaabta maandooriyaha oo loo arko inuusan xakamayn karin ka hortagga maandooriyaha. labada beelood waxay isku ka kaashanayaan la dagaalanka qaswadayaasha iyo cid kasta oo caqabad ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida dhexdooda taal. qodobka 4 soo qabashada eedaysanaha iyo cid kasta oo gacan siisa waxaa lala kaashanayaa hay-adaha amniga ee hoos ku xusan ee ciidanka booliska ee labada dowlad goboleed Puntland iyo Galmudug. ciidanka xasilinta gobolka Mudug ee isku dhafka ah waana ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. CXDS waa calaamadii ciidanka. ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee danab iyo kuwa PSF-ta ee Puntland. 25 bishan ayaa qorshuhu yahay in wejiga labaad ee shirka nabadaynta labadan beelood mar kale lagu qabto magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. shirkaas oo isna la filayo in laga soo saaro qodobadan iyo kuwa kale oo kaabaya isla markaana u hiilinaya nabadda. Saadaq Siciid Nur, Galmudug TV, Gaalkacyo.